soo dhawaada asxaabey walaalkiina barqada maanta inay wada qiso kaloo aad u xanuun badan ka hor intaana bilaabin naga inaad muuqaalkan like saartid channelka dadka cusubtaana subscribe-ta naga ilmaamin let's go bilowga sheekadeenna waxay ku bilaabanaysaa xaafad yar oo lagu magacaabo kaasu waxaa ku noolay lamaanayaal la kala odhan jiray Obi iyo weliba Ella sannado badan ayayna isqabeen labadoodana waxay isku dhaleen 7 gabdhooda inkastoo Ella gabdhahani faraha badan ay dhashay arrinkaasi wuxuusan qancin ninkii Obi yahay oo mar walba uu la jaabi jiray xaaskiisa iyo sababtii mar walba gabdho kaliya u dhalayso isagoo ka rajeynaya wiil inay u dhasho xilli walbana dagaalkooda aad buu u sii siyaadinayay mar walba oo gabadh ay gurigani ku soo biirtaan oo sidaas ay isku dagaali jireen ilaa deedisku arrinkooda xitaa ay ogaadeen subax subaxyada ka mid ah Obi sidii casiisa xaaskiisa ayuu bilaabay inuu ku qayliyo bannaanka ayayna xilligaasi taagnaayeen xitaa deriskana waa ay daawanayeen wuxuuna yidhi maxaa kaa qaldan maxaad iigu dhali weysay wiil xitaa gabdhahani faraha badan ay dhalaysid iyadana waxay tidhi walaalow aniga ma awoodda iska leh wiili gabar wixii aan dooranayo isagana arrinkaas aad buu ugu sii qayliyey wuxuuna yidhi waad ogtahay Ella gabdhow shaqadooda keliya waxay tahay nadaafadda guriga cunto karinta iyo weliba markii hadda weynaadaan nin uu ka guursado taas ayay qiimo ku leeyihin waad ogtahay wiil qiimaha uu leeyahay howlaha guriga dhan ayuu la wareegaa isaga ayaana dadka idil biila kadibna waxay tidhi si aad wax u malaysi maahan gabdhuhuna wax walba oo ninka ay samayn kara waa ay samayn karaan teeda kale waa hadiyadna la siiyey maxaad rabbigaaga ugu mahadcelin la'daay xilligaasi meesha ay ku doodayeen meesha waxaa soo agmaray nin taajir oo ganacsada ah kaasoo lagu magacaabayay Patrick kadibna dhexdeeda ayuu soo galay balse uu ogaado wax meesha ka socda wuuna u soo dhawaaday kadibna wuxuu yidhi aad baan naga xumaa inaan soo dhex galo laakiin ma ogaa kara wax meeshani ka socda Obi ayaa isla markii Patrick u jawaabay waxa uu ku yidhi dhibka ugu weyn ee inta nagu haysta wax kale maahan xaaskayga ayaa waxay dhashay 7 gabdhood anigana waxaan ka rabay wiil inay ii dhasho marka sidaas ayaan isu qaylaynaa Patrick ayaana wuxuu yidhi Obi waad qaldan tahay xaqiiqada haddii aan kuu sheego aniga hadda way diidaa nin weyn ayaan ahay wax caruurana ma lihi taasna waxaa intaa ii sii dheer inaan ahay nin aniga taajira laakiin waxaan kaligay ku noolahay gurigayga wax walbana waan isku dayay Obi markuu intaasi maqlay waa uu la yaabay ninkan kadibna wuxuu ogaaday qiimaha ay family-ga leeyihiin laakiin Patrick oo hadalkiisii wata ayaa waxa uu ku yidhi warna haddii hal arrin aan sameeyo maadaama gabdho badan ay joogaan 2 gabdhood ayaa magaalada inii geenaya halkaas ayayna waxaan kaga soo baranayaan kadibna magaalada ayaan dib inkugu soo celinayaa isla markiina Obi wuu ku farxay arrinkaasi wuuna ku qancay isla markiina wuxuu yidhi waa ku mahadsan tahay kadibna Patrick ayaa wuxuu yidhi si aaday tahay beri ayaa inii soo laabanaya 2 gabdhoodna isi diyaariya magaalada ayaa inii geenaya wax ayaa inii soo baraya kadibna dib ayaan kugu soo celinayaa Obina wuu ka aqbalay Patrickna meesha ayuu ka soo tegay Obi arrinkan wuu aamini waayey wuxuuna ogaaday fursad fiican oo helay laakiin goortii Patrick uu tegay ayaa xaaskiisa waxay ku soo jeestay ninkii waxay tiri maxaa ka qaldan nacas ma tahay maninaad aqoon ayaa doonaysaa gabdhahaad inaad siisid mise lacag ayaad ku bedelanaysaa Obi ayaana xaaskiisa ku yidhi aamus meeshan adiga hadalka u bannaana waad ogtahay gabdhaan qiimo lahayn ayaa ii dhashay waana ka daalay si aan maalmo buu quudinayay hadda maxay garabtaa xitaa haddaan waan iska iibinayaa ninkaasna waad ogtahay nin hanti badan haysta gurigan ayayna ii fadhiyeen lacagta ayayna iga khasaarinayeen iga daa markaad lada ay u soo qaadin Ella ayaana isku dayday ninkeeda wax walba inay u sharaxdo waxayna tiri gabdheen waxay u baahan yihiin jaceylkan iyo weliba inaan garab istaagno laakiinse Obi arrinkaasi gaashaanka ayuu u daruuray waxa uuna ku yidhi ninkan Patrick waa nin taajira sidaa darteedna ilmeen ayuu wax noo soo barayaa horta wax soo bartaana shaqo ayay helayeen shaqo hadaylaan anaga ayayna biilayaan marka ma taasaana fiicneen Ella arrinkaas ma uusan farxad gelin inkastoo ninkan ay la hadashay maalinkaas sidaas ayay ku kala tageen maalinkii xiga markii la gaarana Patrick wuxuu dib ugu soo laabtay xaafadii ay ku noolaayeen Obi iyo weliba Ella kadibna halkaas wuxuu kula kulmay Obi ayaana isla markii Patrick ka dalbay inay si gooni labada u hadlaan kadibna wuu ka aqbalay wuxuuna yidhi dhegeyso waxaan doonayaa arrin muhiim inaan kuu sheego arrinkaasna wax kale maahan labada gabdhood hadda aan ku siiyayo aan doonaya inaad wax ii soo bartid mid ayaa 12 jir ah marka waxaan kaa rabaa xitaa sadartid waa guursan kartaa horta arrinkaasi maqlay Patrick aad buu ugu farxay laakiinse Obi hadalkiisii wata ayaa wuxuu yidhi dhegeyso haddii aad doonaysid gabadhaas inaad guursatid shardi waa inaad aniga lacag badan siisaa isla markiina Patrick ma uusan diidin wuxuuna yidhi lacag walbaad u baahan tahay waan ku siinayaa xilligaas lacag badan ayuu xitaa waday wuxuuna bilaabay lacagta inuu farta ka saaro wuxuuna yidhi xilli walbaad lacag u baahan tahay aniga ayaana lacagta ku siinayaa wuxuuna u sheegay mid ka mid ah gabadhaas inuu guursan doono tan kalena iyadan uu wax bari doono xitaa iyada laftirkeeda waxbarasho gey doono Obina arrinkaas aad buu ugu farxay isla markiina waa uu ka aqbalay kadibna Patrick ayaa wuxuu yidhi hadda gabdha waa ii saari kartaa isla markiina 2 gabdhood ayuu u soo saaray 2 gabdhood oo kala ahay Mara iyo weliba
Clara. Patrick labadii gabdhood ayuu wuxuu ka soo qaaday magaaladii, wuxuuna keenay caasimadii isaga uu ku noolaay, iyo weliba meeshii uu gurigiisa ku yeelay. Goorta uu xaafadiisa u gaarsay ayuuna bilaabay labadooda inuu la hadlo. Waxaana ku yiri Clara iyo weliba Mara, labadiina dhegaysta. Halkan waxa inii keena waxay tahay, ama haddii xaqiiqda inii sheega aniga waalidiintiina waa in ka soo iibsaday, mana doonaya iskuul inaan geeyo. Waxaana rabaa kaliya shaqadiina inay tahay inaad gurigaani ka shaqaysaan. Gabdhihii markay intaas maqleen waa ay la yaabeen, laakiin waxay dhaheen hooyo iyo aabbo waxaad u sheegtay inaad adiga waxbarashada geynaysid, sida ayaad wax u wadaa. Patrick ayaana labadii gabdhood waxa uu ku yidhi, xaqiiqdu waxay tahay in anigayni soo iibsaday, hadda wixii ka dambeeyana addoommahii ayaa tihiin, gurigaan ayaan ii joogaysiin, wax iskuullayni ma geenayo, saaxiibana ma samaysan kartiin. Mara iyo weliba Clara goorta intaasi maqleen aad bay uga niyadjabeen, waxayna ogaadeen in iyaga hadda dabin ay ku dhaceen, dawinkaasna ay waalidiinteed u dhigeen, mustaqbalkoodiina halkaasuu ku burburay. Sidaasoo kale ninkii waxa uu bilaabay inuu la hadlo ninkii askariga ee guriga u waardiyenayay. Waardiye ayuuna wuxuu ku yidhi dhegayso, waxaan kaa rabaa labadaani gabdhood ee guriga aan keenay inaysan guriga ka bixin, mar walbana waa inaad guriga kor ugu qufushaa, xil walbana aad indhaha ku haysaa. Askariga ayaana wuxuu yidhi diyaar waa mudane, wax walbana waan samaynaya, umana ogolaa doono guriga inay ka baxaan. Patrick ayaana u sii raaciyey, xitaa haddii caawimaad ay ku weydiistaan ha u ogolaan, gurigaanna ha ku jiraan. Wuxuuna yidhi lacag walba ayaan ku siinayaa. Askarigiina ugu dambayntii waa uu ka aqbalay. maalmahaygana ninkii Patrick ayaa wuxuu bilaabay Mara inuu u soo dhawaado, sababtoo Mara waxay gabadha weyn, sidaasoo kale gabar waxay ka qurxoon walaasheeda Clara. Hadiyado badan ayuuna u keenay, intaasna wuxuu doonayay inay u soo dhawaato, laakiin sayida waa ay ka diiday. Arrinkaasna gaashaanka ayuu u daruurtay, waxaanu ku yidhi dhegayso, hadda wixii ka dambeeya xaaska ayaa tahay, hadiyahanna waa inaad qaadataa. Iyadana waxay tidhi lagama yaabo taas inaan kugu raaco, lagamana yaabo mustaqbalka iyo weliba haddaba inaan xaaskaada noqdo, sababtoo aabbay ayaa ka weyn tahay. Patrick arrinkaas aad buu uga carooday, waxauna yidhi ma ilmaantay inaan waalidiintaada aan kaa soo iibsaday, haddana xaafadayda aad joogtid. Iyadana waxay tidhi ama isoo iibsa ama isoo iibsan, aniga lagama yaabo mar ina adiga aan kuu dhaxo. Kadibna meesha ayay ka soo raacday, qolka ayayna iska soo aaday, waxayna bilowday inay halkaas isaga murugooto. Walaasheeda Clara ayaan u timid, waxayna tiri aabbaay maxaa kugu dhacay, maxaadna sidaan oo dhan ugu murugaysan tahay. isla markiina waxay balowday wax walba inay uga sheekayso, weliba iyada ooynaysa. Waxayna ku tiri wuxuu iga dalbaday in aniga xaaskiisa ha noqdo, sidaasoo kale wuxuu bilaabay inuu hadiyada ii keeno. Clara ayaana walaasheeda ku tiri walaalay maxaa hadiyadda uga qaado weysay. Kadibna waxay tiri maxaan hadiyaddiisa ku falayaa, mana doonaya inaan xaaskiisa noqdo. Clara oo aad hantida u jecleed, mar uuna ku riyoonaysay fursadahan oo kale inay aragto, ayaa waxay tiri walaasheediyey fursad dahab ayaa isdhaafsiisay, hadduuba ninkaasi taajirka uu ku soo doontay maxaad ku diiday, maxaadna furtaa isku dhaafsiinaysaa. Kadibna Mara waxay tiri maya, mana doonaya ninkaasi, mana noqon doono xaaskiisa. Kadibna waxay tiri okay, si hadday tahay fursaddan qaaliga ah isdhaafsiisay, aniga ayaa ka faa'iidaysanaya. waxayna bilowday Mara walaasheed inay la hadasho, waxayna tiri walaalay waxaan samayn, ninkan taajirka kaliya ma doonayo inaad xasus noqotid, wuxuu doonayaa kaliya inuu adiga ku isticmaalo, naftaadana uu halis geliyo. laakiin Clara arrinkaasi gaashaanka ay u dururtay, waxayna u sheegtay inay hantidaas ay ka faa'iidaysanayso. balnaka kale aan soo aadno, maama Ella waxay soo gaadhay warka saxda ah, kaasoo ah ninkeeda oo labadaasi gabdhood uu ka gatay ninkaasi taajirka. warkaasna waxay ka maqashay dadka xaafadda oo isla wadaagaya. goorta intaasi ogaatana way aamini weysay, waxayna tiri siduu ninkayga ilmahaasi lacagtiisa ugu beddeshay. kadibna waxay bilowday inay arrinkaani kala hadasho, weliba iyadoo aad uga cadhaysan. goorta uu xaafaddii ku soo laabtana waxay bilowday inay ku qayliso, waxayna tiri maxaa kaa qaldan damiir malid miyaa, si gabdhehena ninkaasi ganacsada aad uga gadatay, aw damiirkii aabanimo kuuma jira miyaa, maxaa kaa qaldan. Obi ayaana ku yidhi aamus, waad ogtahay guriga aniga ayaa ka mas-uula, wax walba aan rabo ayaana samaynayaa. sida kale gabdhahana walba guri waxba kuuma soo kordhinin, haddana haddii meelan kaa geeyey ma dhib ayaad igu qabtaa. Ella ayaana markay intaasi maqasho aad uga cadhooto, waxayna tiri waxaa tahay aabba damiir xun. sida kale waxaan ka shallaynayaa in maanta adiga ninkayga aad tahay, ilmahaasna aan kuu dhalay, weliba inaad noqotay aabba damiir xun. kadibna meesha ayay uga soo dhaqaaqday, qolkeeda ayayna ku soo laabatay. markan ayayna go'aan waxay ku gaartay bal inay wacdo ninkii Patrick ahay oo ay barayso oo ay weydiiso inuu gabdheeda u soo celiyo. goortiisa ay ninkiisiaas u wacday, Patrick ayaa mobil ka qabtay. kadibna waxay ku tiri anigu waxaan ahay Clara iyo weliba Mara hooyadeed, markaan ku baryaa gabdhey waan u baahanahay ee ii soo celi. Patrick markuu intaasi maqlay waa uu qoslay, wuxuuna yidhi maxaa kaa qaldan, haweenaya faqiirta, tida kale see gabdhaada kugu soo celinayaa, gabdhahan macquul ma inaan kuu soo celiyo. kadibna waxay bilowday inay ninkii barisay ay tiraahdo waan ku baryaa ii soo cel carruurtiida waan u baahanahay, lacagtoo ninkaas ka qaatan aniga ayaa kuu soo celinaya. Patrick ayaana mar labaad ku qoslay, waxa uuna yidhi warays daalin, lagama yaabo labadaas gabdhood inaan kuu soo celiyo. sida kale mar dambe ha ugu wicin gabdhayda, sababtaa gabdhaha aniga ayaa la kaala xil wareegay, lagamana yaabo guriga inay ka soo baxaan. hadalna wuxuu ugu soo gebagabeeyey farda moobilkayga soo wicin haweenaya faqiirta ah.
kadibna moobilka ayuu ku jaray. Ella goortuu sidaas moobilka u jaray aad bay uga murugootay, rajo la'aan ayayna dareentay, waxayna ogaatay gabdhaheedii inay xabsi gudaha u galeen. Si kastaba ahaatee, gabadhii Clara waxay bilowday ninkii inuu soo dhowaato, maadaama ay walaasheeda hantidan ay diiday. Isagana arrinkaas aad buu ugu farxay, wuxuuna bilaabay gabadha marar badan inuu bannaanka u kaxeeyo, halkaasna cuntooyin fiican ka soo siiyo, sidaasoo kale dhar qurux badan oo u soo gado. Xitaa mararka qaar dalxiis ayuu wadi jiray, arrinkaasna Clara aad bay ugu faraxsaneed. Maalin ayayna walaasheed u timid, waxayna tidhi, abbahay mii jeedaa nolosha quruxda badan aan ku jiro, iyo weliba fursadda ay isdhaafsiisay. Sidaasoo kale waxay u keentay dharkii Patrick oo u soo gaday, waxayna tidhi, hadda nolol heer sare ayaan ku jiraa, boqorad ayaana noqday, ka warne fursaddaas ay isdhaafsiisay. Maar ayaana tidhi, walaashii qalad weyn ayaa ku socotaa, ninkaasi waa uu kaa weyn yahay, teeda kale waxa uu doonaya inuu adiga ku isticmaalo, haddiyaanna wuxuu kuu siinayaa si uu adiga kuu soo jiito. Marka waan ku baryaa walaashaydiyey, waa inaad hadalkayga qaadataa. Laakiin arrinkaasi gaashaanka ay u dururtay, waxayna tidhi, lagama yaabo fursaddan maanta cajiibka oo ninkaani siiyana lagama yaabo inaa isdhaafsiiyo. Teeda kale xitaa haddii uu guursado, mustaqbalka carruurta uu dhali doona ayaa hantidan oo dhexli doona, marka maxay gartaa abbaayaan kaa raaxayste. Maar ayaana walaasheed ku jiri, walaashay waa riyoonaysaa, ninkaani ma doonaya inaad xaaskiisa saxda aan noqoto, keliya wuxuu rabaa howlihiis inuu kaa dhamaysto, kadibna uu kaa tago. Laakiin walaasheed waxay tidhi, maya geedaa walaalay, hadda maskaxdayga gelin, nolol fiican ayaan ku jiraa. isla markiina waa ay ka dhaqaaqday. Goortiisa ugu dhaqaaqdana maana waxay bilowday inay ka murugoto walaasheeda iyo weliba dad xun ay ku sii socoto, iyo ninkani fursadda uga faa'iidaysanayay gabadhani masaakiinta. Si kastaba ahaatee, Clara waxay xiriirkii la sii wadaa ninkii Patrick ahay, nalo qurux badan ayayna qaateen, ilaa mararka qaar bannaanka ay jireen. Clara sidaasoo kale waxa ay samaysay in lacagta isaga iyada uu siiyo inay hadiyad ay ku soo gaddo, hadiyaasna waalidiinteeda ayuu diri jirtay si ay bal u dareensiisay inay hadda ku nool yihiin nolol aad u qurux badan. Maama Ella goortay hadiyaddii soo gaartay way aamini weysay, aad bayna ugu faraxday dharkan quruxda badan iyo weliba dahabkan mar walba iyada gabadheedii u soo dhiibayso. Waxayna tidhi, qalad weyn ayaan galay, sababtaa ninkaasi gabdhaha u weydiiyay ayaa qalad igu ahayd. Waxayna bilowdaba ninkii inay ka fikirta sidii u raaligelin lahayd. Fikir dheer kadibna ninkii ayay wacday. Patrickna waxay ku tidhi, aad baan kaaga mahadcelinayaa sida wanaagsan ah qoyskeenna mar walbaad uga taxadiraysid. Isagana isma uusan dhimin, waxa uu yidhi, taas wax ka badan ayaad igu leedihiin. Kadibna wuxuu ogaadaba dadkaani keliya lacagta inay daneeyaan, wuxuuna ku yidhi, ka badan ayaad u qalantiin, aniga ayaa niin soo dhiibaya. Iyadana way ugu mahadcelisay. Sidaasoo kale dadka xaafadda ayaa mar kale warkii waxa gaaray, kaasoo ahay in gabadhii yarta ee Clara oo guursaday nin ayada ka da'weyn. Sidaasoo kale warkii waxa uu soo gaara oo ka mid ahayd haweeney ay saaxiibo ahaayeen Ella, taasoo lagu magacaabayay Ngozi. Goortay guriga saaxiibadda ugu timidna waxay tidhi, saaxiibay maxaa kaa qaldan? Waxaana maqlay maruna in gabadhaad yarteeda aad siisay ninka da'weyn. Ma doqon ayaa taa, maxaa kaa qaldan? Maxaa sidaas u samaysay? Mise ninkaada ayaa gabadha iibiyey? iyadana waxay tidhi, saaxiibay wax ma ogida, ninka hanti fiican ayuu leeyahay. Teeda kale gabadhihii waxay ku nool yihiin nolol aad u farxad badan, marka kale nolosha kaaga raaxaystaane. Ngozi way aamini weysay, waxayna tidhi, saaxiibadii doqon ayaa tahay, gabdhahada ayaana iibsatay, iyadoo cadhaysanayana meeshii uga tagtay. Intaasoo dhan waa ay maqlaysay Ella, laakiin dhegigda laguma isin hadiyadda ayaana mar walba u muuqatay. Ballanka kale aan soo aadno, ninkii Patrick wuxuu isku dayey inuu marar badan la hadlo Mara, sababtoo ula hadlayana waxay tahay waxay ahayd gabadhaasi gabadh ka qurxoon gabadha kale ee Clara, kana caqli badan, wuxuuna isku dayey inuu mar walba iyada u soo dhowaado. laakiinse iyada waa ay ka diidaysay, mar walbana waa ay ka fogaa jirtay. Patrick wax walba ayuu isku dayey siduu gabadhan ugu soo dhowaa lahay, laakiin mar walba iyada ayaa ka diidi jirtay. Wuxuuna bilaaba gabadha inuu aad uga caroodo, waxa uuna yidhi, doqon ayaa tahay sida waalidiintaadoo kale, maxaa kaa qaldan? Hantii wax walba ayaan ku siiyey, maxaad ii samaylada wax anigaan kaa rabo? Laakiin waxay tidhi, aniga geeri ayaan ka xigaa, lagamana yaabo in adiga kuu soo dhowaado. wuxuuna yidhi, doqon ayaa tahay, walaasha ayaa kaa fiican, oo u jeedaa walaasha nolosha hadday ku nooshahay, mar walbana bannaanka ayaan u kaxeeyaa, waqti qurux badan ayaana bannaanka ku qaadanaa. marka adiga keligaa maxaa gurigiis ku dhigaysaa? maxaad ku diidaysaa noloshaas qurux badanna lagu soo biirtid? iyadana waa ay ka diiday, isagoo caraysan ayuuna meeshii ka tegey. hortiisa uu ka tegey, maana waxay bilowday inay iska murugooto. si kastaba ha ahaatee, bal dhan kale walaasheedan soo aadno. walaasheeda waqti qurux badan ayay qaateen ninkii Patrick ahay, bilooyin ayaana ka soo wareegay. maalin ayuuna isbitaalka u qaaday. goortii dhakhtarkii uu jeegareeyana wuxuu yidhi, gabadhan uur ayay leedahay. goortii Clara intaas ay maqashay aad bay ugu farxday, waxaana u rumowday midkii riyooyinka iyadii ku riyoonaysay, taasoo hadda cunugiina u siday ninkan Patrick. laakiin Patrick arrinkani kuma uusan farxin, waxa uuna Clara ku yidhi, xaqiiqa haddii aan kuu sheego, ani ma doonayo inaan carruur helo. waxaan adiga kuula joogana waxay tahay inaan adiga waqti keliya aan kula qaato. qorshahan iguma jirto in adiga ilmihii dhashid. goortii maqashana aad bay uga naxday, isla markiina dhakhtarka ayuu la hadlay, lacag badan ayuuna siiyey. wuxuuna yidhi, cunuga calooshada ku jirta waa inaad ka takhalustaa. dhakhtarkiina kama uusan diidin, isla markiina gabadhii ayuu obarashinka ku fuliyey. inkastoo gabadhaasi xilligaas ay ahayd gabar yar,
dhakhtarkii wuxuu ku fuliyey obereshnkii laakiin 2 maalin kadib xanuunkii soo gaaray awoodiisa gabadhii sidaas ayay ku geeriyootay. Samaara goorta ay maqashay walaasheeda Kalaara dhimashadeeda aad bay uga naxday weyna aamini weysay meeshii ayayna isagoysay. sidaas oo kale ninkii Patrick ahay goortii ogaaday gabadhii inay dhimatay isla markiiba aabaheeda Obi la xiriiray wuxuuna u sheegay warkaasi xanuunka badan in gabadhiisa ay geeriyootay. wuxuuna sidaas oo kale u raaciyay gabadha inay jirneed xanuun darteedna ay u dhimatay. Aabihii markuu maqlo waa uu ka naxay wuxuuna ku yidhi maxaad noogu soo sheegi weysay ka hor intaysa dhiban si aan xanuunkeedu u ogaano. laakiin Patrick ayaa wuxuu ku yidhi waxaan diidayay inaan dhibo marka sidaa darteed aniga ayaa isku dayay inaan daaway laakiin waa ku guuldareystay haddana way dhimatay. meydkeeda ayaana xaafadiina kuu soo celinayaa halkaasna ku dugta. aabihiina kama diidna isla markii wuu iska aqbalay. aan u soo laabano maara qolkii ay isaga jirta halkaas iyana isaga murugeynaysay waxayna cadaawad weyn u qaaday ninkii Patrick ay waxayna ogaatay inuu sabab u ahay maanta walaasheeda inay dhimato. kadibna ninka ayuu u timid weliba iyadoo aad u caraysan waxayna tiri nin doqon ayaa tahay walaashaydan adiga ayaa iga dilay. waxayna sidaasoo kale u siraacsisay inay idin mar laba ay jeclaa doonin. Patrickna isma uusan dhimin oo kama uusan daba hadlin hadiyad ayuuna siiyey laakiin waa ka diiday wuxuuna doonay inuu laaluusho si ay maskaxdii u degto. laakiin taasi waa uu ku guuldaraystay. dhinaca kale maama Ella goortii warkii gabadhaas uu soo gaaray inay dhimatay aad bay uga naxday. saaxiibadeeda Ngozi ayaa noo timid mar kale ayayna waxay ku tiri hooyo aan qalbi lahayn ayaa tahay maxaa kaa qaldan sida kale sidee loogu soo dirayaa gabadhaada iyadoo dhimatay maxaad xitaa baaritaan ugu samay weysay oo ogaa weysay. laakiin maama Ella ayaa waxay ku tiri aniga hadda maxaan samayn karaa gabadheediina waa ay dhimatay wax kaloo awoodana ma jirto ilaa waxa noo bannaa waa inaan iska doogno. Ngozi ayaana waxay ku tiri doqon yahay waxa ka cod gabadhaada baaritaan ku samay ogowna waxa ay ku dhimatay. laakiin iyada waxay tiri okay haddii sidaad tahay ninkayga ayaan la hadlayaa kadibna bal waa arkaynaa haddii uu aqbalayo. Ngozi ayaana saaxiibadeeda Ella ku tiri wuul ayaan ku urjeenayaa. habeenkii markii la gaaray ninkii ayaa guriga ku soo laabtay iyadana waxay u sheegtay aragay Ngozi ay u sheegtay waxayna ku tiri ka waran gabadha haddii baaritaan aan ku samayno sababtoo ah ninkaasi Patrick waa ka shakiysana waxaan u malaynayaa gabadhayda inuu dilay sidoo kaliya iyadoo dhimatay dibna ugu soo celinayaa. Obina markuu intaasi maqlay isma uusan dhibine waxa uu ku yidhi xaqiiqada haddii aan kuu sheego ninkaasi waa nin aan aaminsanahay lagama yaabana gabadheen inuu wax xun ku sameeyo marka uu ku bariyo waxyaabahan aan naga dabordaysan caasimada egada. maama Ella ayaana isku dayday ninkan wax walba inuu sharaxdo xitaa waxay u sheegtay saaxiibadeed inay ka dalbadeen inay arrinkan baaritaan ay ku samaysay xitaa iyada naga caawinayso. laakiin odaygii waxa uu ku yidhi iska daa naagahan deriska waxyaabaha ay kuu soo sheegayaan waxa ay doonayaan maskaxda inay kaa galaan marka uu ku bariyaa ninkaasna waa nin la aamini karo waan ku bariyaa nagada arrinkan mar dambaan ugu soo qaadin. laakiinse maama Ella arrinkaas waa ay ka biyo diiday waxayna u sheegtay inay wax walba iyada ay samaynayso. Obi wuxuu ogaaday dhibaatadan dhanba xaaskiisa wax walba soo riixaya waa inay tahay saaxiibadeedii Ngozi isagana wuxuu go'aan ku gaaray inuu arrinkan soo xalliyo. kadibna wuxuu u yimid Ngozi ninkeeda waxauna bilaabay inuu arrinka u sheego waxaana ku yidhi dhegayso xaaskaada mar walba xaafadayda ayay timaadaa islaanteeda ayayna war been ku akhrisaa marka waan ku baryaa xaaskaaga la hadal war dama arrimaheena dambiyaysa soo gelin. Ngozi ninkeedana isla markiiba wuxuu yidhi aad baan kaaga raaligelinayaa wixii xaaskayga kuu samaysay xaaskaygana aniga ayaa la hadlayaa arrinkaasna mar damba bannaanku ma soo bixi doono 100% waan kaa raaligelinayaa mana rajeynaya mar dambe inuu arrinkaas soo laabo doono. Obi ayaan isla markii ku yidhi hadda waan qaatay raaligelintaada laakiin ogow mar dambe haddii wax meeshaasi ka soo laabtaan ina adiga sabab u tahay. kadibna wuxuu ku yidhi ka cabsan mar dambe arrinkaas kuma soo laabo doonto gurigaana xitaa aad soo maadi doonto. Obina wuu uga mahad celiyey isla markiina odaga ayuu meesha uga tegey. aan dhinac kale u soo laabano ninkii Patrick ahay wax badan ayuu isku dayay amaare inuu soo dhawaado laakiin waa ay ka diiday. kadibna go'aan wuxuu ku gaaray inuu qorshe cusub la yimaado. qorshahaasna wax kale ma ahayna waxa uu bilaabay cuntada inuu wax ugu dhex daro gaar ahaan biyo cabitaanka ay cabayso. maaragtay goortay cuntadaas iyo weliba cabitaankaas ay cabto hurdo ayay dareemi jirtay meesha ayayna ku dhici jirtay. subaxii xiga markii hurdada ay ka soo toostana waxay dareemi jirtay daal saa'ida iyo weliba caajis waxayna isla yaabi jirtay waxa iyada ka qaldan. halkaasoo keliya ma aysan ahayn subax walba ay hurdada ay ka soo toosto caajiskaas iyo weliba kor xanuunkaas ay isku arki jirtay iyadana is weydii jirtay waxa iyada ka qaldan. arrinkaasna stress ayay ka qaaday murugo kale u sii dheeraanta waxyeed dhimashada walaasheeda halka qof ay magaalada ku haysatay. si kastaba ahaatee waqtigu sidaas ayuu ku socday asbuucyadana bilaha ayay isku dhibayeen iyadana ma aysan ogeen xanuunkan mar walba iyada ku soo laalaabanaya weliba daalkan caajiska. si kastaba ahaatee waxay go'aansatay ninkii Patrick inay ka dalbato inuu isbitaal geeyo. kadibna waxa uu ku yidhi maxaa kugu dhacay iyadana waxay u sheegtay waxay dareemaysay weliba caajis iyo daalkan. kadibna waxa uu ku yidhi waa in adiga baaritaan lagu sameeyaa weliba uur lagaa baraa. maara markay maqasho way aamin weyse uurkana kaadiisi maxaa waaye
isagana wuxuu yidhi waxaa iska daa isla markiina gacanteeda ayuu isla markiiba qabtay wuxuuna og hayay dhanka isbitaalka camaara way aamin weyse waxayna tiri waxaan macquul maahan laakiin ugu dambayntii waa iska raacday kadibna isbitaalka ayaa la geeyey natiijadii soo baxda ayaana waxay noqotay arrinay aad ula yaabtay natiijadana waxaa loo sheegay iyada inay uur leedahay laakiin waxay tiri sidee ayaa aniga uur ku qaadi karaa xitaa aanoo nin u tegin iyadoo meeshii ku murugaysanayaan ninkii Patrick u yimid weliba isagoo wax xashoodaana dareemeen kadibna waxa uu ku yidhi cunuga calooshaada ku dira aniga ayaa aabbihiisa wuxuuna yidhi cuntada cunaysay weliba cabitaankii ayaa wax kugu daray habeen walboo sidaas ku seexatina aniga ayaa ku imaanayay sidaas ayaana uur ku qaaday hortii maqashana way aaminayso waxayna tiri macquul maahan sida ayaa waxdii ugu samaysay wuxuuna yidhi adigu waa diiday marka anigana waan ku yaanay iyadana aad bay arrinkaas uga carootay waxayna ku tiri wixii walaashay ku samaysay makuu filnaaweysay haddana ma aniga ayaa ii soo jeesatay isagana wuxuu yidhi waad aqala xun tahay walaasha iyada ayaa isdayacday si kastaba ahaatee hadda waxaan kaa rabaa cunuga calooshaada ku jira inaad ka soo taqallustid micnaha aad iska soo ridid iyadana waxay tiri lagama yaabo inaan sameeyo waxayna tiri cunugan waa cunugayga Patrick ayaana wuxuu ku yidhi qasab ayaa isaga soo ridaysaa qof hadalkaada dhegaysanaysa ma jirto la soco haddii aad dididna noloshaada ayaan burburi doonaa weliba waxaan kugu dhex xidhi doonaa meel aadna noloshaada weligaa aadna tegin marka waa inaad arrinkaani aqbashaa maari aad bay u murugootay waxayna ogaatay daba inay ku jirto ninkan ay meel ugu baxsan karin taasna ay maanta sababeeda aabbaheeda iyo weliba noloshii uu dhexgeliyey Patrick ayaana sidaasoo kale iyadii u raaciyey in subaxiga uu qaadi doono isbitaalkana gey doono cunugana sidaas looga soo takhallusi doono xitaa wuxuu xasuusiyey walaasheedii iyo weliba wixii iyada ay ku dhimatay taasaa markii cunugay ka takhallusaysay maar ayaana ninkii u sheegtay inay isaga meel u raacin cunugeedana ay ka takhalluseen iyadana ay korso doonto kadibna wuxuu yidhi okaysi hadday taa waa la kala arki doonaa kadibna qolkeeda ay iska aaday meeshii ayana bilowday inay isaga murugooto maalinkaas sidaas ayuu ku tegey maalinkii labaad ayuu qorshe wuxuu bilaabay ninkii Patrick inuu cuntada kanin ugu daro iyadana xilligaas way baahneed cuntadii ayay cuntay laakiin goortii cuntadii ay sidaas cuntay ayay Mara waxay isku aragtay waxaysan hore isku arki jirin daciiftinimo ayay jirkeeda ka dareentay kadibna waxayba ogaataba ninkii Patrick inuu cuntada kanin ugu soo daray wax yar kadibna gabadhii meesha ayay ku dhacday subaxiga markay hurdada ka soo toostana waxay aragtay caloosheeda oo xanuun saayid ay ka dareemayso ugu dambayntiina waxay xaqiiqsatay in ayada cunugeeda caloosha ku diray ay lumisay micnaha in laga takhallusay waxayna ogaatay waxaasoo dhan Patrick inuu ka dambeeyey kadibna Patrick ayay u timid waxayna tiri maxaa sidaas u samaysay maxaa cunugayga aad dishay kadibna wuxuu yidhi marka hore waan kula hadlay hadalna waa diiday anigana hadda problemkii labada noo dhexeeya meesha ka saaray hore ayaana kugu sheegay inaan wax cunug aan rabin maar aad ay arrinkaas uga carootay waxayna tiri doqon ayaa taa cunugayga ayaana sumaysay sidaas ayaana iga dishay aabba xun ayaana tahay kadibna wuxuu yidhi walaalay hore ayaan kugu sheegay aniga wax cunuga ma rabo waxaan doonayaa keliya inaan adiga waqti aan kula qaato muhiimadeedna waa intaasoo keliya iyadana markay intaasi maqasho way iska murugooto waxayna ogaataa ninkani doqon inuu yahay weliba doqonkii ugu liitay walaashayna sidaas uu ku sameeyey sidaasna ay u geeriyootay Mara oo murugaysanayeen wuxuu ku yidhi lagama yaabo guriga inaad ka tagta halkan ayaan ii joogaysaa hadda ka dambeeyana aniga ayaa ninkaaga kadibna waa ay ka soo tagtay qolkeeda isaga soo laabatay meeshayiina isaga murugootay Mara noloshaan way adkaysa weysay go'aanna waxay ku gaartay in meeshan ay ka baxsato maadaama ninkaana uu dabin weyn u dhigay kadibna waxay ku fikirtay si ay ugu baxsan lahayd waxayna bilowday bal inay askariga la hadasho oo intaas iyada u ogolaadaaye kadibna iyada dhudhuumanaysa ayay askarigii bannaanka ugu timid kadibna waxay ka codsatay balina uu ogolaaday inay meeshan ay ka baxsato iyadoo uga sheekaysay dhibaatooyinkii iyada ay soo martay iyo weliba ninkani waxa uu geystay waxa uu laakiin askariga ku yidhi maya macquul maahan uma ogolaanayo inaad halkani ka baxsatid sababtoo Patrick wuxuu isii amar adag wuxuuna ii sheegay adiga inaan halkan kugu ilaaliyo iyadana waxay bilowday ninkii inay barido ay marnaba niyad jabin laakiinse askarigu waa uu ka diiday wuxuu yidhi lagama yaabo inaan ku ogolaado xitaa waxay isku dayday inay laaluushto xitaa lacag ay siiso laakiin waa uu ka diiday wuxuuna yidhi lagama yaabo inaan ku ogolaado inaad gurigaani ka baxdid wuxuuna ku yidhi waa in hadda gurigaada aad ku laabataa iyadana way iska soo laabatay qolkeeda ayayna iska timid waxayna bilowday inay halkaa isaga murugooto waxayna ogaatay Patrick dabin xun inuu u dhigay maalmaha ka mid ayadoo dhudhuumanaysa ayay kor waxay ka aragtay in ninkii Patrick oo waalidiinteeda la hadlayay xilligaasna waxa uu ku dhahayay gabadhu waa ay faraxsan tahay iskuul ayay dhigataa nolol fiican ayayna ku nooshahay sidaasoo kale aabeed ayaa waxa uu ku yidhi waa arrin wanaagsan gabadheedu waxay ii soo laaban doontaa iyadoo milyaneer lacag badan samaysay Patrick ayaa niyadda u sii dhisay wuxuuna yidhi okay ha ka cabsan iyadoo taajirada lacag badan la ayay kuu soo laabanaysaa
kadibna mobilka ayuu ku diray wuuna qoslay wuxuuna yidhi ka waranday doqonnimadiisa besh baadiyaha ayuu iska joogaa gabadhiisa ayuu lacag ku iibsaday haddana wuxuu doonayaa gabadhiisoo taajir inay usoo laabato maxaala intaasoo dhan waa ay maqlaysay waxayna ogaatay doqonnimada aabbeed iyo weliba siduu iyada noloshaas uu burburinayo si kastaba haatee noloshada ayaga iyo maara ku nooleed laakiin isbari markay ka soo wareegatay ayay fikir la timid fikirkaasna wax kale ma aysan ahayn waxay go'aansatay ninkan inay u soo dhowaato sababtoo waa xalka keliya ay gurigan u fakarto waxayna bilowday ninkii jacayl beelayn u jesho isagana waa ula yaabay si ay isku beddeshay hadiyado badan ayuuna siiyey sidaasoo kale waqtiyo qurux badan ayay bannaan ku soo qaateen muddo asbuucyo ayay sidaasi ku wadeen iyadana waxaasoo dhan waxay u samaynaysay ninkan marka hore inuu ayada aamino oo unu fikirkii baxsashada oo meesha u ka saaro kadibna waxay bilowday bal inay ninkani la hadasho ayna kala hadasho arrinkani inuu wayda keligeed u ogolaado inay bannaanka aado kadibna waxa ay habeenada ka mida ku tidhi saaxiib waad og tahay maalin aan la keena neediga bannaanka yanadna ka warran beri keligii haddii aan bannaanka aado waxaan doonayaa inay arrigiya soo xalisto kadibna waan soo laabanayaa laakiin batrig inta markuu maqlo wuxuu yidhi maya uma ogolanaya keliga inaa bannaanka aadid labadeenna ayaa isla baxaynaa kadibna waan si soo laabanaynaa iyadaas laakiin waxay tidhi maya keliga ayaan doonayaa oo arrin yar ayaan soo xallisanayaa laakiin isagu wuxuu yidhi kuuma ogolaanayo ka warran haddii burigaa ka baxsatid sidee ayaan kugu soo celinayaa iyadana waxay tidhi saaxiibow ma aadna aamin miya waxsadkan aa ka hadlaysa maxay tahay labadeena waaba isjecelnahaye batrig arrinkaas waa uu ka diiday gaashaanka iyoonu daruuray wuxuuna yidhi kuuma ogolaanaya guriga inaa ka baxdid haddii aan baxaynan labadeena ayaa sidaas ku baxaynaa muddo asbuucyo ayay isku dayaysa inay arrinkani ku xaliso laakiin isaga waa uu ka diiday kadibna qolkeeda ayay ku soo laabatay waxayna ogaatay guriga inay marnabo ka baxsan karin laakiin iyada marnabo ma aysan ii jebin maalin kale ayayna waxay u timid ninkii waxayna ku tiri saaxiib maxay igu diidan tahay inaan baxo sidoo kale waxaan ku weydiinayaa maxaa aniga sidaan cadaawadda la adiila dhaqmaysaa waad og tahay aniga gabadh yar ayaan ahay markaasuu yidhi xaqiiqada haddii aan kuu sheego moog tahay aniga waxaan doonaya hooyada inaan guursado xiriir hore ayaa naga dhaceeyey laakiin goortii xaafaddii aan ku soo laabto waxaan ogaaday inay aabbaha ay guursatay sidaasna ilmaha badan ay ku dhashay anigana waxaan go'aansaday inaan adukin ka aro ilmiheeda markoodha aan burburiyo kadibna iyada aan ku jeesto goortii intaasi maqasho aad bay u naxday qolkeeda ayayna ku soo laabatay wayna iska murugootay waxayna ogaatay ninkani qorshayaal waaweyn uu leeyahay kadibna go'aan waxay ku gaartay ninka inay ka takhallusto qolkiisa ayay si qarsoodi u soo gashay kadibna bastoolo qolkiisa ayay gacanta ku soo dhigtay waxayna u soo laabatay ninkii weliba iyadoo qarsanaysa waxayna bilowday ninkii romantiga inay la jesho goortaysa ogaatay ninkiinu isdejiyey isla markiiba waxay la soo baxday bastooladii isaga ayayna ku soo aadisay kadibna wuxuu yidhi waxaan laguma kaftamo laakiin ayada intay qabatay ayay isla markiiba ragshadii taabatay 2 mar ayayna ku dhufatay wayna ku dhacday isagana dhulka ayuu ku dhacay waardiyihii oo bannaanka jooga ayaa isla markiiba xabaddii maqlay askartii ayuuna isla markii wacay booliska ayaan isla markiiba gurigii soo gaaray waxayna arkeen gabadhii oo ninka halkani ku dishay iyadii ayayna isla markiiba dhankaasi xabsiga u tagaabeen waxayna bilaabeen su'aale inay weydiiyaan su'aalaheediina wax walba ayay u sheegtay weliba inay nafteeda ay difaacaysay maxkamaddii ayaana isla markiiba iyada loo sii taxaabay maxkamaddii qaadiga ayayna wax walba u sheegtay iyo weliba ninkani dhibaatada u geystay walaasheedana iibka iyada uu marsiiyey sidaasoo kale ilmihii iyada uu ka soo riday qaadigii markuu wax walba maqlay ayuu ka nacay gabadha qisada ku dhacday isla markiina waxa uu yidhi gabadhaani nafteeda ayay difaacaysay xabsiga ayaan laga daayey weliba hantidii batrig oo lahayna iyada ayaa lagu wareejiyey baara goortii hantidii la wareegtay waxay ugu horrayn aaday iskuulka ayayna wax ka baratay kadibna jaamacaddii ayay u gudubtay sanado kadibna jaamacadihii ayay soo dhammaysay goortii waxbarashadii dhammaysana kambanigii batrig ayay la wareegtay kadibna iyadu waxayba noqotay taajirada maalin maalmaha ka mid ah ayay maara waxay ka qayb gashay barnaamij lagu soo bandhigay shirkadaha wax soo saarka halkaasna waxay kula kulantay ninkaasoo lagu magacaabayay jonna wuxuu ahay nin kale oo taajira goortii ninka aragtana aad bay ula dhacday isaga xitaa waa uu la dhacay kadibna goortii barnaamijka uu soo dhammaaday ayay labadooda isbarteen nambaradii ayayna kala qaateen eeshii ayayna ku soo kala tageen maalmihiigana wakhti qurux badan ayay qaateen ilaa ugu dambayntii ninkii john ahay oo uu ka dalbaday maara inay isguursadaan iyadana kama aysa diidana waa ay ka aqbashay asbuuc kadibna arooskooda ayaa dhacay weliba aroos weyn ayaa loo dhigay sheekadanina halkaas ayay ku soo dhammaanaysa asxaabay muhiimadda sheekada ay la wadaagana waxay tahay inaa cashira ka qaadatiin wixii ilaahay uu siiyeen inaad ku qanacdo wiili gabar wixii ay ahaadaanba asxaabay sheekadan halkaas ayay ku dhammaatay waa rajeynaya inaa cashira ka baratay fikirkaada kumantii nugula wadaag muuqaalkan lagsar janaalkana subscribe-ta ka ilmaamin oo walaalkin barqadan leh sidaas iyo amaan allah goodbye